intaasi keliya baarlamaanka waxaan sugaynaa wixii ayaga ay ka soo saaraan kooda isla maalinta ay soo saaraan maalin labaadeeda baarlamaanka Soomaaliyeed go'aankiisa ugu horeeyay wuxuu nagu doonaa ciidanka Kenya waa inay ka baxaan dalka Soomaaliya waa mahadsantihiin waxaan filayaa ninkii guri muraayad leh deganow dhagax tuuriyaha bilaabin baan maqli jiray mahmo Kenya dawladnimada nagala dhaxaysa darisnimada Soomaali wax badan inay xeerisay dawlad ahaan iyo shacbi ahaanba iyadana way ka qabtaa caalamkan uu ka warhayaa shacabkeedana ma mooga hadday iyada ay u horseedayso dalkeedan nabdoon dhismayaasha quruxda badan ee Soomaali burburkeeda lagaga faa'iiday hadday doonayso inay ku soo biirto maartay burburka mundul gubtay kama naxo ma garataya laakiin inay gadaal iskugu noqoto nabadda haddaysan iyada dan ugu jirin malayn maayo inay Soomaaliya kaligeeda dan ugu jirayso marka waan ognahay dawladda Kenya badi fikradaha khaldan ka imaanayo shirkado iyo dawlado oo aan berri waxba aanan tari doonin laakiinse inay keliya dantooda ay tahay ha isku dhacaan Soomaaliya iyo Kenya waxa ayaga maslaxadda markaas isku dhacaasi ugu jiro inay ka manaafacaadsadaan keliya dantooda ay tahay taa baan leeyahay Kenya Soomaalidu waxay tiraahdaa nimaan ku furi doonin yuusan ku rarin darisnimada sharafta wanaaga aan wax badan maanta aan dib u eegis ku samaynayna mar waliba Soomaaliya oo la garataan leenahay haddii iyadu dariiqa hadda khaldan iyada dan ay moodane waataana daaya lahaa ninka tuhunsan Soomaali baa tabariyar inta aadan dhib weyn taransan antala ku siinay warhooy timir laf baa ku jirta meel lagu soo ordama Soomaaliya meel ma basla wada galaysid Soomaaliyaan ahay iyo Kenyaan ahay laba dawladooda isku ahay hal mar ama Kenya uu noqon ama Soomaaliya uu noqon qofka hadduu Kenya yahay annaga Soomaali baan nahay hadduu xildhibaan Kenyaan yahayna xildhibaan Soomaali baan annagana afkiisa aan ku hadlaynaa haddii ay dawladda Kenya ayada wanaaga iyo darisnimada oo iyaga ay maanta wax ayaga ay ku joogaan Soomaalinimada laftirkeeda xushmad ay ku haystaan ay tahay tana hadda maanta walaalaheena haddii iyaga ay garan waayaan Soomaali fara badan baa Kenya ku nool shakhsina maaha labana maaha faarax macallim Soomaali ah oo dhalad ah oo dhab ah Kenya waa ku nool yahay mowqifkiisana waa cadcad yahay usoo qaadi mayno Soomaalida ku nool oo dhan nin codkii ma gartay nin walaalkeena ah waaye Soomaali fara badan baa maartay aqlabiyada codka ee tiraahda ee meesha uu ku jiro laakiinse haddii isaga uu yiraahdo kursiga uu ku fadhiyo jinsiyadiisa asalka ah ee kaga zaa'id calayso maqaamka hadda meesha nin marka adiga waxba tahay mas'uul kullay taasi waxaan u maleynayaa laftirkeeda waa maartay afka dhihidna culays ma laha laakiin waxaan ogahay hadduu Soomaalinimo uu aaminsan yahay umaleyn maayo in maskaxdiisa iyo dareenkiisa oo isla socdo eraygaas mid uu uga soo baxay si caadi ah iska caddahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ceyrin cuna calooshiisa ka cabsi qabaa meeshan adduunkii baa loo gar dhigtay garnaqaasi Soomaalidu waxay isku kalsoon tahay haddii si cadaalad ah wax loo maamulo wixii iyada ay lahayd oo horeyna u cadaa adduunkana shalay maanta maaha maabka Soomaaliya ee hadda iyada dhinac ma artay ay ka jartayna maabab oo rasmi adduunka la yaqaan ayaa ka horeeyay
kaasna ma aragtay waxa iyada ay hadda isleedahay oo awalba meelaha iyo qoto iyo laablaab iyo ma aragtay suuq madow lagu wada hadlo waa wixii iyada markii hore ma aragtay dadka hawshan u fududeeyay markii hore xataa wada hadal bilaabay inay taa iyada ay soo hadda ma aragtay damac gelisay laakiin dawladihii ka horeeyay xataa Allah naxariistay tii marxuum Maxamed Siyaad Bare 80 iyo malaha 9 ayay UN-ka xuduudaha badda Soomaaliya ay u gudbisay ilaa iyo maanta xageebay Kenya ku maqnayd waagaasi maxay u daba dhigan weeyday dawladda Maxamed Siyaad Bare ee maabka iyo xuduudka badaha ee iyada ay u geysay UN-ka ay u dhigi weeyday uu khaldan yahay Soomaaliya waxa ay soo gudbisay Kenya 63 bay dawlad noqotay mashalay maartay ay timid maxaa aamusiyay 20 iyo dhowr ka sano ma hadeera xoogaa yar Soomaaliya walaha xoogaa way kala daadsan tahay waa laga faa'iideysan karaa miya aqligu mise dad kale u durbaantumaya oo iyada markaas berina aan ognahay meel ayaga ay ku dambayso markii ayaga ay garan waayaan ooga siiban doono waxaan filayaa waxaan way iska cad yihiin wax oo hadda ma aragtay la tilmaamayo oo la isbarayo oo iida iyo maartay loo sameeyay xayeysiis ma Kenya waxba Soomaaliya ku tabaysa oo la og yahay bad iska dhaaf berri ba ku maqan yaysan soo kicinin wax badan oo hadda waliba Soomaaliya ay doonayso in aanan lagu dayin wixii shalay baatay dawladaha qaarkood ee Soomaaliya ku dhexmaray haddana weli fursad bay haysataa laakiin madaxweynaha dawladda Kenya ninka dhalinyarada ah Uhuru Kenyatta dawladdiisa iyo dadka ma artay isaga ee madax uu yahay reer Kenya waan ognahay bulshada nabadeed inay yihiin Soomaaliya maanta wixii ayada ay lahayd dhaqaale iyo shacbi iyo wixii ayada ee Kenya ee maanta garab iyo gaashaan ay ka dhigan karto agteeda yaalaan saraha dhaadheer ee Nairobi iyo Islii Soomaaliya hanti gelin ama maalgashiga ay ku leedahay dawlad la mid ah ee Afrika iska dhaafay Asia ka soo baxaysa ma jirto even Europe ma gartay danaheeda ha fahamto Soomaaliya qaad oo sun ah oo dhaqaalaheedii ku baaba'ay dadkeedii ku baaba'ay ayaa ooga yimaada waxa hadda maanta la tilmaami karo oo nafci ah ee la sheegi karo oo Soomaaliya ee iyada Kenya ee la dhihi kara oo maanta dhaqaale hadii la yiraahdo oo berri la kala goosto xiriirka ee ay ka tabaysa ma jiraan maanta hay-adihii Soomaaliya ee dhaqaalihii loogu talagalay dib u dhiskeedii iyo dhammaan ee la soo marin jiray waxa base u ahaa Nairobi giri waan ognahay inta shaqaale ee wiil ay ka haysatay annagaasi parliamentarian ayaa mar waliba seminaaradena ay Nairobi tagi jirnay annaga safaaradaha ee viisayaasha aan ka qaadanayna Nairobi aan ugu tagi jirnay fadhigeeda hoteeladooda iyo suuqooda waxay ahayd Soomaaliya 75% bariga Afrika inta ayada ay geyn karto Kenya ay geynaysay maanta hadda durba waxa bilaabatay in Ethiopia Djibouti Uganda inay maanta Soomaaliya already ay bilaabaan ganacsi ay la galaan maanta heshiisiyo hatta in dawladii shirarkeedii iyo wixii maanta loo baahan yahay inay halkaas ay u wareegaan berina waxaan ogeyn ba ka wareegi doono intaasoo kun oo ciidan oo mushahar ku qaadato Soomaaliya wax ka ilaalinayna oo aan mandate ka haysanin baarlamaan Soomaaliya la soo marinin ee ay soo geliyeen si suuq madow ah dawlado oo ayaga markaasi gacan saar ay la lahayd amisom noqoto markii dambe ay ku soo noqotay intaasi kaliya baarlamaanka waxaan sugaynaa wixii ayaga ay ka soo saaraan kooda isla maalinta ay soo saaraan maalin labaadeeda baarlamaanka Soomaaliyeed go'aankiisa ugu horeeyay wuxuu nagu doonaa ciidanka Kenya waa inay ka baxaan dalka sababtoo ah carabtu waxay tiraahdaa xamiha haramiha ma yumkin nin ku dhacaya haddana ku dhicinayo ya wax meel isla wada gasha maaha anaa ku ilaalinayo anaa ku xadayo ama anaa ku dhacayo no ama cadow bay noqonay ama saaxiib bay noqonay ma gartaya Uganda Soomaaliya waxay u joogtaa wixii ayada u joogto waa doorkeedii
shariifka waa ku soo dhaweynaynaa dawladdeena iyo dawladaha maanta ama IGAD ha noqdaan ama African Union Burundi baa joogto waa ku soo dhaweynaynaa dawladaha kale ee la midka ah ee Djibouti leh ama Ethiopia wixii mandate ku yimid ee African Union ah haddii marka iyada ay marka go'aansato inaan laba cadow isku nahay hadda sideeba aniga cadowgayga aniga uu ilaalin karaa anna aan asaga saaxiib oo la noqon karaa meel ma wada geli karto marka waxa waaye Kenya toosay cadawnimo ayada u cadaysanaysa xuduudka Soomaaliya way ka baxaysaa kadib meeshii la iskugu tago aan aragno ugartay meeshii kadib nin walba tabartiisa ay geyso ayay noqon doontaa laakiin aniga ku talin maayo ka muwaadin Soomaaliyeed ka xildhibaan Soomaaliyeed Kenya inay adeegsato wax aanan maanta haddii ayada ay ku khaldanto beri ka qoomamayn doonto waxa lagu ordana dagaal ma aha Soomaaliyane dagaal way ka soo daashay waraabo soo daalayne dagaalkiisa lama doonta la yiri ma gartay ayada dihane ma gartay waxa way haysga gaabishan leeyahay ma gartay dadkaani waxa way taaka uma taal ma gartay